كلنا هاي سوري هذا كتي هذا قرب شغل وما وعكر واحد شوكتا 8 سنة نقول كان أدك أو قرح البدن أدك أبا حد وين دريسان وعنده كرنا ده و ما السكول ما يسترن واحد كم غني متران مرة هذا اللي ذا جرون كبرون اللي وعياراي ماشي اللي قلتو كناي هولك الشركة اللي قبسناي خوتيل كدتك سياحناين كار باقي كار وشكي واحد كم غني إيش يشرين sideed ugu dhiiratay inaad bandiirada ka samayso dhul intaan leeg qarash intaan leegna aad geliso sidaan hadda ka hor baan aan u sheegay halkan waxa iigu yimid rag adiga ka horeeyay Cabdisalaan Heerari baa halkan iigu yimid saasoo kale uu wareystay aniga waxaan u arkaa mataqaanaa waxaan u arkaa sidee ugu dhiiratay markii la yiraahdo waa dareemi karaysaa meeshaan runtii waxaan magac ahayn oo badan oo horta ka siyaadaya ma jiraan sida xaqiiqda dhabta marka Yurub joogaan inay shaqaysto ka benilo maxaan ku yiraahdaa wax walba ay u furan yihiin ayaan ahaa laakiin halkaan markaan imid sida runtii waxaan ka damqaday inayna lahayn meesha chief aysan lahayn maxaan ku yiraahdaa garoomo aysan lahayn dhalinyaradeenna ay ku ciyaarto maxaan ku yiraahdaa restaurant fiican aysan lahayn marka nasiibna waa jiray aniguna waa ku dhiiraday waxaan ugu dhiiraday inaan wax ka aasaaso markaan wixii aasaasayna waa ku tagay waa sii socday waa marka waxaan ku tagay heer aan dib u laaban waayay ayaan ku tagay labadayda waalidna meeshaan ay ku xabaalan yihiin oo intaan aabay ugu xabaalan oo alxamdulillah shukri halkaana waxa ku xabaalan gacantayda midigtaana waxa ku xabaalan hooyaday anigana waxaan malaynayaa meeshaan la igu xabaali doono deerbeedan ka dhow waa u jeedaa in weyn oo da noqdo meeshaan sida gaari gacan u riixay ayaan mataqaanaa ay ku gaboob marka wad dareemi karaysaa waa arkaa waxa kala rabaa inaan ku weydiiyo soo dhaweyn nooca ayaa kala kulantay reer bandiiradley sideese u arkeen fikirkan markii aad maaragtay hawshaan bilowday dadku see uga falceliyeen aad iyo aad bay wanaagsan tahay mataqaanaa su-aashaas dadweynaha halkan ku nool dad wanaagsan waaye asili horta waxaan nin reer bandiiradley aniga markii hore ahaa nin la yaqaana aabihiis iyo hooyadiis iyo dadkiisa iyo dhammaan dadkiina in badan oo aniga ila dhalatay weli meeshay ku dambeeyaan marka horta qof la yaqaan baan ahaayoo ma ahayn qof oo aan la aqoon oo mataqaanaa dadka ku cusub maanan ahayn laakiin inta badan sida runtii mararka qaarkood caqabad waa kula kulmaysaa qof la yaqaana waan ahaa marka runtii bulshada halkan joogtaa waa bulsho aad u wanaagsan si wanaagsan bayna ii soo dhaweeyeen baan oran karaa aniga shakhsiyan laakiin wax yar oo simple oo ismo wax waa jira laakiin dad wanaagsan bay u badan yihiin bulshada halkan ku joogtaa aad iyo aadna waan ugu mahadcelinayaa bulshada halkan joogtaa reer bandiiradley in badanna waa ay fahmeen shaqada aniga hadda aan wado markii hore waa iska jiraan waxyaalo laakiin hadda aad bay u fahmeen waa yimaadaan hoteelka waa mataqaanaa usoo dalxiis tagaan shaahoodii kafoodii ka cabaan waa ka casheeyaan qofkii u yimaada way keensadaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa reer bandiiradley aniga shakhsiyan aadaan umahadsanta cali waxaan arkaa inaad meeshaan dhir badan ku beertay sidoo kaleetana geedo nooc walba aad ku beertay halkee ka keenta dalagan aad ku beertay yaase kaa saaciday magaaladan 38 sano kabacdi ayaan horta imid anigu qurbo in badan baan ku maqnaa wadamadaas Jarmalka Ingiriiska ilaa iyo Sweden Norway dhulkaas markii horena reer Ciraaq iyo waxaan ahay Saudi Arabia markii halkaan imaanayay gadaal aan ugu soo laaftay oo halkaan aan qurbaha ka imaanayay 110 geed baan dhabarka ku sitay markaan halkaan imid dalka aan waxaan u maleynay wadankan ku imid oo kale cimiladu waa kulay dabagaab baan u soo qaatay markiiba qosol bay ugu bilaabeen markaan dabagaabka u soo qaatay dhirtana aawti waxay maleeyeen in qof waalan oo wadanka dadka ku soo biireeyay marka dhirtaan waxaan ka soo qaatay magaalada Afgooya ayaan ka soo qaatay runtii marka hambaagigan ku soo qaatay dhabarka dambaan ku soo qaatay halkaan markaan imid waxaan xasuustaa walaalkay oo intaas oo waqti aan is arag baan gurigiisa imid marka in yaroo kaftana markaan ku daro walaalkay markii ciyaalkiisa ugu soo yacaanba uu qabanayo ciyaalka wuxuu isdhaayay ninkaan nin waalan weeye armo ciyaalka wax ka yeelay ama ninkaan 38 sano aan arag oo geedaha ku raran khatar buu ilmaha ku yahay marka
dhirtan runtii hadda waxaan ku faraxsanahay asagii iyo dad badanba inay geedo iga qaateen oo miro qaateen oo guryahooda ku beerteen oo mataqaanaa dadkii ay si fiican ay ula qabsadeen bandiradley hadda maanta waxaan isleeyahay beeray leedahay waa dheeraysan tahay magaalo qurux badan weeye markii anigu aanay midna waxba maysan jirin geed iyo wax dayactiraya midna ma jirin marka aad baan ugu faraxsanahay in fakarkaygii aniga aan la imid dad badan ay iga qaateen waana mahadsantahay markii horeeto aad dabakaabka la timid waxaa lagu arkaya nin waalan waxaa lagu arkaya nin maaragtay dadka qurbaha ka yimid inta badan waxay yidhaahdaan waa duran yihiin marka hadda dadkii waaqic bay noqdeen wax badan baa iska bedelay fikirkoodiioo waxaaba noo sheegtay in ayagu dalagii kaa soo raadsadaan mirihii kaa soo raadsadaan inay geedihii beertaan ay noqotay hadda iyo markaa imaanaysay farqi weyn baa u dhexeeya dadkii waxaad ii sheegtay inaad sidoo kaleeto beero badan inaad samaysaa ii sheegtay beer inaad ka samaysay meel hadda noo jirta dhowr iyo 10 kilomitir ku dhowaad 20 kilomitir meel noo jirta mid kaletana aad meelahan dhow ka samaysay marka ayaga laftoodu dadkii ma ku daydeen oo ayagu laftooda beerihii ma bilaabeen inay fashaan maadaama bandhigan markii horeta aad samaysay oo ay ayagu laftoodu ay hadda ay fahmeen oo qaateen dhankii beeraha ka waran ayaga ma lagaaga dayday ma jirtaa maaragtay isku day ay sameeyeen dhinacii beeraha bulshada reer bandiiraley baan dhihi karaa reer bandiiraley keliya maaha dad badan oo qurbaha ka yimid baa igu daysaday maraykanka waa laga yimid reer canada waan arkay reer america waa arkay north america waan isku idhaahdo yurubna haba sheegin wax badan baa ka yimid dadka mogtahay runtii meeshaan horta waa meel xoogaa dhulkeeda unbaa adag laakiin waxaan is leeyahay dad aad iyo aad iyo aad u badan ayaa ku soo dhiiraday matooray la yimaadeen matooray mataqaanaa sameeyeen beero waaweyn bay sameeyeen wax aniga aanan samayn bay qaar badan ay sameeyeen ku dhiiradeen runtiina anigu waxaan u ahaa pictureka ay ku daysadeen baan ahaa aniga dad badan baa aad igu daysaday waxaan isdhihi karaa laakiin rag kale oo waan arkay hadda geel sameeyey baan arkay hadda maaragtay Soomaal bay hadda rag sameeyeen sida runtii meelahan duurka ka sameeyeen qurba joog iyo mataqaanaa iyo maaragtay beled joogga waddankaanba labaduba si fiican bay maaragtay dhulka ugu dhideen dhulka waa la qabatimay ummadii gadaal bay u soo laabatay si wanaagsan oo wanaagsan baa mataqaanaa dhulkii looga shaqeynaya marka waxaan isdhihi karaa waqtigaygu hore faa'iido ii ahayd aniga inaan imaado dadkuna inay ugu daysadaan aad baan ugu mataqaanaa faraxsana caliyow maraan xalay ku soo booqday iyo haatanba waxaan arkayay shaqaalo badan inay ku joogaan shaqaale aad u tiro badan inay joogaan kuwii dhirta waraabinayay kuwii maqaayadda kuwii hoteelka isla markaana waxaa la arkaya caliyo asagoo laftiisa hawsha dhinaca uga jira oo caawinaya oo shaqadii la qabanaya oo saas u dhex taagan meeshii ayaga laftoodu ma dhiirigelin bay kaa tahay ma shaqo jacayl bay kaa tahay mise waa ku jimicsataa dadka badanaa waxay u arkaan dadka markay dadku ay da'yihiin oo weynaadaan waxay u arkaan shaqada inaysan dayin karin dad badan baa sidaa u arkaa laakiin aniga macnahaygu sidaa ma ahan aniga badanaaba inta aan lacag ku bixiyey iyo inta mataqaanaa aan xoogayga ku dhisay waxaan isleeyahay haddii aysan xoogaygu badnayn way isleegyihiin baan oran karaa anigu shaqada ma joojiyo anoo yar ayaan shaqo bilaabay anoo nin yar oo 7 jir ah shaqo bilaabay ilaa iyo waqtigaana maaragtay survive-kaas waxaasaan ku dhex jiraa shaqadaasaan ku dhex jiraa igama ahan istustus iyo maaragtay laakiin waxay iga tahay shaqada waxa weeye waa qabatimay adhafta ku noqday shaqada inaan shaqada sidaa u shaqeeyo gacantaan ka shaqeeyaa mataqaanaa maskaxdaan ka shaqeeyaa maalkan ku shaqeeyaa in badan saasaan ku shaqeeyaa shaqaalaha marka hadda annaga noo jooga shaqaalo ku filan waa yahay meesha laakiin mar kastaba hawsha annaga uma uga harno shaqaalaha uma deyno wax badan baan la ogaanaa waxyaalaha jira wax badan baan la ogaanaa shaqaalaha iyaguna kuwa hadda mataqaanaa magaaladan u dhashana waa joogaan kuwa mataqaanaa Ethiopia iyo dhulkaas aan ka keenana waa ku jiraan sida kuwa geenoo kale dad ajnabi ah way marka igama ahan mataqaanaa maxaan ku iraahdaa shaqada aad baan u jeclaa waa tahay cali weli barnaamijkeeni baa dhexda uga jirnaa ma jirtaa shakhsiyaad ama dad kugu dhiirigeliyey oo kugu booriyey ama kaaga mahadceliyey oo ku yidhi warniyow caliyow wax wanaagsan baad qabatay ama wax wanaagsan baad deegaankii ku soo kordhisay halkaa ka sii wad hadday tahay maamulka degmada
maamulka galmudug oo ay hoos tagto maaragtay degmada bandiiradley iyo ilaa heer federaal wasiiro iyo maareeyayaal iyo maxaan ku idhahdaa agaasimayaal iyo cid kastoo mataqaanaa bulshada waxgal u ah iyo kuwa mataqaanaa magaalada maamulka magaalada dhammaan meeshaan u yimaadaan waa inay isticmaalaan mar kastoo ay u yimaadaanna waxaan kala kulmaa waaba midda keliya oo aan oran karo waxay bandiiradley iyadaaba igu haysaba midda shidaalka igu shubta waay mahadnaq iyo waxaan kala kulmaa iyo maaragtay hore usii soco markii aan musawir yar meeshaan aan dhigo dad badan baa comments ka bixiya waxayna yidhaahdaan aad iyo aad baad mataqaana ugu mahadsan tahay hore usii soco saas keep going baa mar kasta laygu dhaha waa tahay caliyow waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka waxaana booqan doonaa beerihii haddii ilaahayga awoodda leh ka raali noqdo waxaan rabaa iyadana inaan ku weydiiyo su-aal kaleetoo ah sida hadda ka dhawaajisayba waxaa tidhi rag kaleetoo qurba jooga waxaan ka mid ah u malaynaa saaxiibka bashiir oo asna geel ugu xiran yahay duurka magaalada bandiiradley afkeeda hore oo aad isku waddan ka timaadeen oo rees widnes la tihiin dabcan baaqa aad u dirayso ganacsatada reer bandiiradley gaar ahaan qurba joogta muxuu yahay baaqaan u dirayaa maanta waxa weeye waad ogtihiinoo dee qurbe markii horena wax weynoo lagu hayay ma jiraan haddeertaana qurba uu sii baaba'aya sida runtii waad ujeedaan wadamada caalamka sidii qolo kastaaba ay usii xumaanayso dunidii islaamka sidii loo baabiinayo xaggaas iyo wadamada westernka ee la oran karo ama yurub ama maxaan ku north america wax islaam jacayl oo meesha ka jiraa ma jiraan dee qofku hadduusan ku jeclayna lamaba deganaan kartid nololba laguma haystaba dalkeenna ayaan dhisanaynaa isagaa nagu filan nin kastaaba dhagaxiisa cogaa yar ha wareegsado ha yimaado dhulkan waa dhul beereed weeye dhul fiican weeye waa dhul mataqaanaa sidaad doontid aad ugu noolaan karaysid haddaad wax yar oo aan badnayn aad ka samaysatid waxaan ugu gacan haadinayaa dadkayaga inay yimaadaan dhulkoodana ay dhistaan isagaana anfacaya asagaana mataqaana nolosha ku dambayn doontaa sidaan malaynayo hadda waxaba la helaba shidaalkii iyo dekadii iyo wixii oo dhan ayaaba isku furanba waaba ujeedaa hadda mataqaana noloshu siday u socoto waxaan u malaynayaa halkaana halka rasmiga noqon doonta inay tahay ayaan malaynayaa marka anigu waxaan isleeyahay wax gadaal laga qaban lahaa baad hore kasii qabatay laakiin anigu waxaan isleeyahay dadkii xooggiisa way dambeeyaan wayna ammaan doonaan wayna kusoo dhiiran doonaan in badan baana isoo weydiisay maalin kasta isoo weydiiyaan hay goormaan imaanaa markii aan soo xagaabaxayna saasay dadka marka waxaan idin leeyahay dhammaantiin lama oran karo dadkii o dhan soo wada kaca laakiin dad badan baa kusoo dhiiran doonaan oranaya mahadsanta aad iyo aad aa umahadsan tahay cali axmed xayd oo ah shaqsigii dhulkan aan maanta joognay aadka u quruxda badan aadkana u weyn fikirkiisa lahaa isla markaana asagu aan muddo 8 sano ah aan dibadda uga bixin